wasaaradda uu joogo hal bastoolad kama qaadan karo oo isagu ma ogtahay amar kama bixin karo waxa gabar yar oo ka hooseyda amarka bixida oo xukunta wasaaradda oo isagu uu hoos taga marka hadii aad wasiirnimada ku sii haysanayso 8 bilood oo xasan u hartay hadaad ku sii joogayso dadka ku caynayso adeer waa kaaga aqal celinaya ka joog arintaas adeeran oo ah ninkaas adeero marka waxaan ka rabaa dawladdii salbalaan markii la dhisay raggii ka mid noqday waxa loo baxshay facaatuug waxa loogu baxshay ninku marka uu sahan lahayn ma fahamto oo dadkiisa iyo bulshadiisa wadan waa sax oo facaatuug waxa weeye marka facaatuug markii la noqdo aadna lama galo qofna lama dilo qofna wax lagama sheego laakiin dantaada maslaxadaada la fiirsadaha kugu ceebin maynee waxa weeye wiil yar oo shaqaalaha maqaayad waa loo qortaay waxay ku fiican tahay inaad shaqadaada iska haysato laakiin aad dadka bulshada maaragtay ku dhaxle samcada ama karaamada ku dhaxle inaad caayin waa ka waaridnimo waxaan ku aqli celin waayo waxaan ka hadlayo waxaan rabaa dawladda afhayeen uma eed wax meesha inaan nidaam dawlihu ka jirin waxaad ku ogaanaysaa dawladda wiil oo isaga ilma adeer yihiin afhayeenka dawladda sida lagu sheego waxa weeyo wasaaradda uu joogo hal bastoolad kama qaadan karo oo isagu ma ogtahay amar kama bixin karo waxa gabar yar oo ka hooseyda amarka bixida oo xukunta wasaaradda oo isagu uu hoos taga wasaaradda maxaafiisku iska taga uu fariistaa wasaaradda arrimaha dibadda waxa weeye waa ninka nidaamkii sameeyay inta waxa jirta safaaraduhu markii ay maartay isdiiq wax la yiraahdaa laga doontaa wasaaradda arrimaha dibadda markii wasaaraddu warqad soo dirto tasdiiq baa laga doontaa tasdiiqiyo inta meeshii ka qaaday oo xafiis dibadda geystay ayuu wuxuu $20 marka loo xareynaya canshuur ahaan dawladda leeyahay markaas uu asagii wuxuu ku qaadanayaa $50 qofka nidaamkaas dawligiisaas u fahamsan oo hungurigaas maartay uu ka galay oo sidaas raqiista u ah ayaa inuu bulshadii caayo oo dadkii caayo bulshada labeenteedii caayo shaqo ka dhigtay marka hadii aad wasiirnimada ku sii haysanayso 8 bilood oo xasan u hartay hadaad ku sii joogayso dadka ku caynayso adeer waa kaaga aqal celinaya ka joog arintaas dad iscaaye ma ihin dad isaflagaadeeye ma ihin dad ehelaha nahay waxa weeye anigu kuma qoro maanta inaan wax ka sheego ceebay igu tahay inaan maanta wax ka sheego laakiin waa aqal celin waxaygu waana waaridnimo waayo qof kale oo ku waaninayo muddo fara badan oo meel ka dhacaas ku hadlaysay qof kale oo inta ku soo istaaga ku celiyaa ma jirin